السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شقادنا قيبت لواد ما شاء الله سوق اللي ساكا شقوين اللي سونا دي ويقول لك عفمات كوب بدن طلعت اسكو حركة الله يقانو نافيس نتورك oo ah hay'ad anti ka ah la dagaalanka FGM-ka bayskeeduna yahay Hargeysa Somaliland ayaa waxay soo cilaamisay shaqooyin saaka dhowr ah oo dadkii caafimaadka bartay khaasatan public health-ka ama dhaqtarnimada bartay ama somehow wixii la xidhiidha caafimaadka soo bartay ay shaqadan ku habboon tahay waxay raadinayaan pharmacist baa loo baahan yahay ayaa looga baahan yahay ay u baahan yihiin pharmacist bay u baahan yihiin pharmacist ay u baahan yihiin oo marka dhanka pharmacist xaq aqoon loo baahan yihiin shaqooyinku qabanayo iyo waxyaabaha looga baahan yahay linkiga hoosaan soo dhigayaa marka qofkii raba inuu apply gareeyo just ha apply gareeyo waxaan kaloo kula wadaagi lahaa qualification qofka looga baahan yahay pharmacist ah final degree baa looga baahan yahay xagga pharmacy-ga ah minimum of 3 years experience as pharmacist 3 sano xagga pharmacy-da aqoon leeyahay ideally working with hospital or relevant facility ama inuu isbitaal soo shaqeeyay maadiyada ku sixeen inuu qofkan meelaha u socdaali karo IDB-yada ah oo uu tagi karo meelaha IDB-yadu ku nool yihiin dadka IDB-sa ku nool yihiin ama barakacayaashu ciddii markaa shaqadan rabta inay apply garayso waxaa lagu dirayaa emailka ay leedahay nafis ee ku yaala markaa linkiga ku jira xagga hoose ee how to apply ku qoran tahay markaa shaqadan by email baa lagu dirayaa emailka kuu soo qoreen baad ku diraysaa waxaa kaloo aad ciwaan uga dhigaysaa subjectiga emailkaaga pharmacist baad ka dhigaysaa saas ka dhigaysaa ugu dambeynna 21 February ayaad markaa aad shaqada markaa la rabaa inaad ugu dambeyn aad xareysato shaqada labaad ee soo xaysiiyeen Nafis Network waxa weeyaan waxay soo xaysiiyeen field officer maadaama hay'adda barnaamij ka wado meelo kala duwan fiilashooda ay ka shaqeeyaan mid ka mid ah ayaa ama fiilashaas baa laga rabaa loo rabaa qof markaa fiilka u coordinate gareeya hay'adda arrimaheedii barnaamijkeedii khaasatan tog dheer meelaha kale clinicska caafimaadka ku jirna waa qofkaasi waa u socdaal karaa ama tog dheer gudaheeda haato ama dee kolley shaqadu contract ku xidhnaan doontaa initial contract initialkiisa hore waa 1 year Nafis Network markaa waad akhrisan kartaa introduction-keeda ciddii u baahan inay fahanto qofkan ujeedada loo rabo in loo qaato waxa weeyaan waa nurse field officer markaa under the general supervision of the project manager coordinates facilitation of field activities waa si aan sheegay fiilasha marka activity-da ka socda qofkaas inuu ururka u coordinate gareeyo waxyaabaha si specific oo looga sii rabaa way fara badan yihiin waxaan rajeynaya insha Allah inaan linkiga soo dhigo aqoon ahaan maxaa fiilkan looga baahan yahay degree xagga nurse-ka looga baahan yahay 3 sano way aragnimo ah oo ka soo shaqeeyay NGO-yada ama kuwa caalamiga waliba khaasatan qofkaas waa inuu aqoon si yeelan karaa baa laga jeclaysanayaa waxa loo yaqaano SGBV-ga good knowledge in assigning geographical area meeshan loo magacaabay qofku inuu aqoon u leeyahay programmada caafimaadka waa inuu ku fiican yahay ingiriisiga waa inuu qori karaa akhriyi karaa uu ku fiicnaan karaa iyo Soomaaligaba computerka waa inuu yaqaanaa report writing skill waa inuu leeyahay qofkaasi sidiisi la mid ah deadline-ka iyo shaqadii hore tan waa isku mid oo 22 February 2023 ma dhacaysaa email oo lagu dirayaa by email ciwaankana sida aan sheegay field officer ba ka dhigaysaa subject-ga emailkaaga hadhow sidiisi la mid ah waxa kaloo shaqo kale ay soo xaysiisay Nafis oo ah Nafis Network waxay soo xaysiisay laboratory technician oo Somaliland ah waa tog dheer specifically
therefore waa kulay shaqadan dawaa la garan karaa qofkii lab technician soo bartay waa xareyn karaa caafimaadka loo cidna loo sheegi maayo maxaa looga baahan yahay qofkan a qualified registered medical laboratory technician with 3 years experience waa inuu sidoo kale markaa qofkaasi experience weerka u leeyahay local or international NGOs-ka iyo qaar kale oo waxyaabo badan markaa looga baahan yahay xagga reportidii baa kasoo geli karaa theoretical and sampling knowledge of sampling testing proactive producing results waxaasoo dhan baa ka mid noqonaya marka shaqadan sidaas lamid ah waa isku dheyti xagga iyadana koo ilaad ka bisha la xareynaya February 2023 ciwaanka subject-ga by email ma ku dirsan email-ka waxa kale taala laboratory technician ay ku qoraysaa marka shaqada maadaama isku xilli soo xisay isku xilli baa dhacayaan la wada xareysanaya waxa kale nafis u baahan tahay medical doctor baa u baahan tahay location waa Togdheer initial contract waa 1 sano hal sano kale waxa filayaa mashaariicdan waa mashruuc baaran loo wada socdo weeyaan sida qorshu yahay sidaas ila mid hadana xagga aqoonteega iyadana kulli waa soo gelinaya linkiga xagga hoose waad arki doontaa waxa looga baahan yahay medical doctor registered in NHBC licensing body of Somaliland baa looga baahan yahay NHBC ga dad baa hadana faanto saan uu fahmay waxa weeyaan waa National Health Professional Commission qaranka ee arrimaha caafimaadka waad garan kartaa waa in ka liisan qofkaasi liisan ay cadeen ka haystaan taasinidiisi ana marka hadee dhaqtar mid ciyaarna because waa waxa naf bilaad lagu aaminay waa in qofka soo hubiya liisan u sita actifa iyo waxyaabo kala badan qof dhaqtar kale deetan ayuu fahmi karaya linkiga waan soo dhigayaa hal la abalay gareeyo insha Allah shaqo kale nafis waxa u baahan sidoo kale waxa u baahan tahay nurse ama midwife u baahan tahay waa Togdheer baa looga baahan yahay hada dheed kuwaas wada mid saafalayo tanna insha Allah sidaas leeg iyadana koo ilaad ka bishu waa shaqooyinka wada socdaan nurse ama midwife kana waa garanta waxyaabaha looga baahanayo degree baa looga baahan xagga nurse-ka ama midwife-ka marka insha Allah hadii la ka dhigo shaqooyinkaas hala wada balay garayo waxaan kaloo talay ahaan ku siinaa CV-ga inay iska hagaajisaan waa CV-gu waa very important waa very crucial aad muhiim u tahay inaad CV-ga iska hagaajiso oo aad runtii iska qurxiso oo shaqadan waxyaabaha ku qoran ee la soo dejiyay aad smart garasay CV-ga taas muhiim ah ha kula boodin marka hore instruction-ka hadda xitaa halka subject-ga aad ka ilowdo wixii lagu qoray ma soo raacin wala yaab email-ka inuu disable noqdo laanahu wuxuu ku socdaa maxaa la yiraahdaa display title buu ku socdaa marka saa loo socdo insha Allah ha soo balay gareeyo hala balay gareeyo cidii u baahan taliye tusaale WhatsApp number-ka aan idin sheegi doono waa iga soo qaban kartaan talaan aan siiyo oo ah 063 486 that's the last one aan insha Allah inaad iga soo xiriiraan wixii taliye tusaale ah marka assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh